الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. waxaan salaamayaa dadka Soomaaliyeed ee halkan naga daawanaya, madaxda Soomaaliyeed, hay'adda media, beesha media halkan la joogta, iyo cashuur bixiyaasha ganacsatada Soomaaliyeed na soo gaarsiiyay halkan maanta taaganahay, iyo cashuur bixiyaasha kale. dal waliba cashuur buu ku dhisan yahay, dal waliba wuxuu ku dhisan yahay waxa dadkiisu ay bixiyaan ayuu ku dhisan yahay. maantay waxa weeye kulankii aan lahaan jiray awal soo joogtada ahaa ee bilaha ahaa, maanta bishii labaad 28keedii weeye. sidaad ogtihiinna waa bishan 28 bay ku dhamaataa, berri March baa bilaabmaysa. marka waxaan doonayaa inaan idinka warramo sidii caadada inoo ahayd bisha maanta ina dhaaftay bishii labaad ahayd, waxyaalaha ugu waaweynaa ee ama noo qabsoomay ama shaqadayadu ay ku eedanayd ayaan idinka warramayaa. xaq baad u leedihiin in laydin warramo dad yow Soomaaliyeed oo laydinka warramo waxyaalaha noo suurta gashay. qof waliba mas'uuliyad buu leeyahay intaan leeyahay, waa maaliyadda dalka weeye. marka taa inaan idinka warramo ayaa xaq aad u leedihiin. waxaan doonayaa 3 arrimood ayaan isleeyahay baa ugu lixdanaa arrimaha bishan la soo dhaaftay. midi waxa weeye kulankii hay'adda lacagta adduunka ee IMF-ka la yidhaahdo ay Soomaalida ka shireen iyo wixii ka soo baxay. wax badan oo hore ayaan ka hadalay, laakiin waxay ka soo baxay ugu dambeeyay ayaan doonayaa inaan idinkala hadlo, idin sharaxo, idin sheego. talabaad waxa weeye arrinta cashuuraha ee wada hadalka taagnaa beryahan oo dhan dhowr jeerna aan ka hadlay, ayaan doonayaa inaan aad u caddeeyo, aad u qeexo, sii furfuro. waxaan doonayaa inaan isla wada ogaano waxa socda oo idinkuna ra'yigiina ku biirsataan. anigu waxay la tahay waxa weeye dalkan waa la wada leeyahay, qof waliba wuxuu leeyahay hadal buu ku leeyahay, qof waliba wuxuu ku leeyahay inuu wax ka sheego, wax ka yidhaahdo, wixiisana maskaxda la geliyo ayuu ku leeyahay. daraadeed waa iska wareysanaynaa inaad ila fahamtaan baan doonaya. arrinta ugu dambaysana waxa weeye bishan April, bishan February ama bisha labaad, bal hadda waxyaalaha kale ee suuragalay ayaan iyadana idinka warramaya. arrinta IMF-ka ama International Monetary Fund afka kale lagu yidhaha, ama hay'adda lacagta adduunka, waxaan mar labaad idinku celinayaa hay'addaasi qiimaha ay leedahay inaan isla wada fahamno weeyaan. waxaan odhan karaa waxa weeye hay'addaasi waa bangiga dhexe ee adduunka oo kale weeye. yacni waxaa jira lacag oo dhan marka la isku wada keeno, marka amahaha laga hadlo, marka lacag samayn laga hadlo, marka lacag isdhaafaya la kala beddelay laga hadlo, yaa qalbiga waddanku marka halkaa la eego waa central bank weeye. adduunku markaa central bank bay leeyihiin oo sidaas oo kale ama aad ugu dhow ayaa waa IMF qolada la yidhaha weeyaan. waxay wax ka sheegaan adduunyadu sida ay u dhaqmayso, waddan waliba siduu u dhaqmayo ayay wax ka sheegaan. waddan walba sida wixiisa u maamulo, gaar ahaan xagga maamulka lacagta iyo maaliyadda iyo economiga ayay wax ka sheegaan. cid wal oo doonaysa inay wax kula qabsataba, dalka la qabsataba, waxaa la eegayaa taqriirka ay soo jeediyeen ama warbixinta ay ka keeneen ayaa la eegayaa. taasaana wax lagu qaadanaya. weligaaba iswareeriyo, weligaaba waxaa doonta lahaw. haddaad doonayso adduunka inaad la falgasho, waa inaad dhegaysataa waxa qolada is leeyihiin, aada la fadhiisataa, iska daafacdaa, waxaad karaysa sheegtaa, waxaanad karayn laba karaya tidhaahdaa. waa inaad wax isla garataan. had iyo jeerna dadku marka ay kula fadhiistaan ee aad wada fadhiisataan, haddaad macno samaynayso waa ku fahmayaan, waxbaad isla gaadhaysaan. wax qasab oo wax duduuciyi ma jiro. hay-addaasi markaa sidaan horadii ku sheegay, waxaan la gallay ahdi baan la gallay. ahdigaan la gallay waxaa sameey, waxaan ha samayn, waxaa sameey, waxaan ha samayn. arrintaas dib ugu noqon maayo, horaan idinku sharaxay. waatii aan idiin sheegay aan shirka ku lahayn 3 bilood mar baa la geli, dabeetana sanadkaa la soo gabagabeeyey. waatii bishii December ayna dhaaftay.
sideedeedii toddobadeedii ilaa 13 shirkii Nairobi wixii ka soo baxay wax ku oola ayuu ahaa wax ku oola oo naga wada farxiya ayuu ahaa wixii duuduub baa lagu qaatay waxa loo geeyay guddida ugu sareysa ee hay'adda IMF kala yiraahdo loo geeyay 22keedii reportkii ay soo qoreen staff soo qoreen shaqaaluhu soo qoreen shaqaaluhu soo dhinac walba ka soo eegeen soo la fagureen iyo wixii ay doonayeen inay soo jeediyaan iyo waxay la tahay marka la yiraahdo Soomaaliya ayay geeyeen boorkooda boorku waxa weeye nimanka dhowrka boqol ee wadan ee wadale banka dadka matala weeyaan u fadhiya meesha round table-ka waa aragtay maarmalanaya marka waa la discuss gareeyay waxaan ku soo gabagabeynayaa taas inay ka soo baxay war wanaagsan intiina badan in akhriyada waa filaya haddaydan akhriyina internetka waa ku jira reportkii Soomaaliya ee ugu dambeeyay IMF ku soo saaray guul baan ka gaadhnay ilaahay baa mahadle marka hore marka labaad waxaa mahadle madaxda dalkan madaxweynaha ugu horeeyo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisu Xasan Cali Khayre ugu horeeyaan oo runtii ka dhigay arrinta deyn cafiska in dalkan deynta laga cafiyo in dalkan hore u socdo in dalkan soo noqdo oo ku soo noqdo inuu yahay qayb kamid ah adduunyada oo wax ku oola inuu noqdo ay iyagu ka dhigeen inay noqoto muhiimadda ugu weyn ama muhiimadaha ugu weynta ugu horeysa ee dawladda Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre marka hore Allah mahadle iyaga ayaan ku daba joognaa iyagana mahadle juhdiga ay geliyeen marka reportkii ka soo baxay marka IMF-ka waa kaas weey waa ka inta yare kooban weeyaan hadda internetka ka aragteen haddaydan ka aragna arka oo akhriya waxa weeye waa wax ku ool weey marka u horeysa waxa la yiri dhowr iyo 20ka rag iyo dumar bale ee hay'adda xukuma ee la yiraahdo guddida u sareysa marka u horeysa qof waliba uu hadlay baalay qof waliba uu hadlay mar dhacday qof waliba hadlo wax walo laga hadlayba qof waliba gacanta taago taasi waxa weeye waxay tusaysaa dalkan in loo soo jeedo inuu dalkani waxa uu qabanaya dadka indhahooda soo jiitay indhahooda furmeen ya oo la xiisaynayo balada Soomaaliya maanta maxay ka hadlayaan la yiraahdo qof walba waa number 1 number 2 ka labaad qof waliba warqadu soo diyaarsaday buu ka iyo akhri ya inta badan waxa dhaca marka meelaha soo kale lagu shiro dadka dhageysan ama waxba yar akhri dabeetana gacanta taag waxay kula tahay baa sheegi laakiin waxa la igu yiri halkana ku qoran qof waliba warqadu soo akhri wax alla waxay soo akhri soo qorayna waa noo soo diray dawlad wala halka fadhida oo number dawladda matalaya warqad bay soo qoreen way akhriyeen tasaddexaad waxay gidigood wada yiraahdeen aad baan u raacsanay Soomaalidu waxay soo qabteen waxay yiraahdeen Soomaalidu waxay diyaar u yihiin oo ka muuqata inay wadanka soo celiyaan halkaas ku qoran tahay inay wadanka soo celiyaan ayay diyaar u yihiin madaxweynaha iyo prime ministerka iyo dawladoodu waxay diyaar u yihiin bay yiraahdeen inuu dalkan soo noqdo waxaan saa u leenahay bay yiraahdeen duruufo aad u adag bay dhex marayaan bay Soomaalidu oo aan wadanada kale soo marin sidaa daraadeed waa ku amaanaynaa bay yiraahdeen waana ku amaanan yihiin dawladda Soomaaliya shacabkeedu halka ay wax marinayaan way ku amaanan yihiin ayay yiraahdeen waxa kale oo ay yiraahdeen waxay boojiyeen wixii looga baahnaa nidaamka geedi socodka cashuur muxuu ahaa deyn dhaafka wixii looga baahnaa ayay boojiyeen bay yiraahdeen waxay xakameeyeen bay yiraahdeen corruption iyo wixii nooca ahaa iyo xakameeyeen bay yiraahdeen waxay yiraahdeen waxay bixiyeen wixii looga baahnaa in la bixiyo dadkii ay kontaraaga la saxeexdeen ciidamadoodu kamid ahaayeen kamid askara kala duwan kamid ahaayeen shaqaalaha dawladdu kamid ahaayeen dadka kale ee dawladda u shaqeeya dhinac walba ka shaqeeya kamid ahaayeen ayay mushaarkoodii bixiyeen bay yiraahdeen waxay kale yiraahdeen bay yiraahdeen iyadoo duruuftu adag tahay
inay dakhligii kordhiyaan looga baahnaa sanadkiina dhaafay oo weliba dhowr milyan ay dhaafiyaan way ku ammaanayiin baydaan figuresuna halkanay ku yaallaan waan sheegayo o dhani halkaasay ku yaallaan waxay yidhaahdeen waxay boojiyeen arrimihii looga baahnaa in dalkan lacag loo daabaco ayay yidhahdeen wax alla wixii looga baahnaa way boojiyeen sidaa inagoo eegayna taa bay yidhahdeen waxaan soo jeedinaynaa hay-adda caalamka ee lacagtu IMF inay dalkan la shaqayso wax weyn la qabato dalkani bay yidhahdeen wuxuu diyaar u noqday inay cilaaqaadkoodii soo celiyaan ay kula jireen baananka adduunyada baananka adduunyadu baanka adduunka iyo baanka IMF-ka maaha way badan yihiin baananka lacagaha laga qaato dhan adduunyada yaa ama qaar khaas ha noqdaan ama kuwa dawladaha la shaqeeya ha noqdaan intaba inay soo celiyaan IFI-ga la isku yidhaahdo yaa International Financial Institutions aynay Soomaaliya soo celiso waxay looga baahnaa ayay fuliyeen bay yidhahdeen sidaa daraaddeed bay yidhahdeen waxaan aad ugu faraxsannahay aanan sheegaynaa ku ammaanaynaa IMF-ka inay Soomaaliya la shaqeeyeen si fiican ula sii shaqeeyaan in laga shaqeeyo bay yidhahdeen maan ku talinaynaa in lacagtoodii dalkaasi loo soo daabaco habkii loo soo daabici lahaayo lacaga waxay ku bixi lahaana in la raadiyo ayaan ku talinaynaa bay yidhahdeen marka ammaanta waxaa iskale dowladda Soomaaliyeed madaxdeeda iskale madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo cabinet golaha wasiirada oo maalin walba la shirayaba aan kaga hadalno halkaan marayno dariiqaan marayno halkeen taaganahay maxay noo taagan yaa waa arrin wadareed ayay noqotay oo cid waliba ka shaqayso marka taasi horta taasay tahay aad iyo aadna waa loo fiican yahay waxaa markaa aan u gudbayaa arrimaha cashuuraha ayaan u gudbayaa taasi waa taasoo dee success bay ahayd way fiicnay hore socodkeenna dambana hadhow baan ka hadli doona xogaa degay yaa arrimaha cashuuraha walaalayaalow baryahan oo dhan waxaad maqlayseen cashuur baa la kordhiyey cashuur baa la soo rogayey waxyaalaha caynkaas marka u horeysa waxaan doonayaa inaan sheego anigoo maanta ah wasiirkii maaliyadda runtu waxay tahay waxa weeye ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dalkan u soo jeeda ee lacagtooda bixiya hura dartood baa lugaha aan ugu taaganahay waa dartood hadday waxooda iska haystaan oo ay yidhaahdaan wax laga qaadi maayo dawladduna aanay itaal badan oo wax ku qasato lahayn burbur iyo baaba baynu noqon lahayn maanta waxaan ku taaganahay runtii waxa weeye dadka Soomaaliyeed ee cashuur bixiyaasha ayaan ku taaganahay adduunka ilaahay cashuur bixiyaasha waxa la yiraahdaa waa boqorada adduunyada waad ogtahay qof walba kaar yar buusitaa booliisi waxa ay ku qabtaan kaarkaaga la soo baxaysa cashuur bixiyaan ay badanayso yani qofka wadankan dhisaya ama duminaya waa cashuurta weey waxa ama bixinaya ama duminaya waxaad ogtiin waxa weeye dawladii lacag ma samayso dawladii dhowr jeer baan sheegay prime ministerka iyo aad u sheegay arrinta ra'iisul wasaaraha dawladii waxa weeye dad la shaqaaleysiiyey weeyaan oo leeyahay wax noo qabto oo waxa qabta mushaharkiina iyo arrimihi wax ku qabanaysaa inaga keenay dawladdu lacag ma samaysay hadday xataa samaysana waxay ku samaynaysaa amarka dadkay ku samaynaysaa iyo inay iyagu kafaalo qaataan waxa la sameeyay hatta lacag soo print galay tala print galay maanta waxa kafaalo qaadanaya waxa weeye dhaqaalaha dalka kafaalo qaadanaya dhaqaalaha dalkuna waa ganacsatada iyo dad kale jooga ee maal kale weeyaan marka haddii meel lagu xafiiltamo baa la yidhi Soomaalidu doqoni baa la yidhi meel lagu xafiiltamay meel lagu kala tegay ayay moodaan xafiiltanka annaga iyo naga dhaxeeya walaalaha iyaga ganacsatada oo imika aan heshiisna ahaan doono kullaba la'aantooda aan dhaqan karin waa xiwaariya dood naga dhaxaysa dalka sideen wada dhisnaa yaa iyadoo duruufaha la ogyahay oo la idin ogyahay oo duruufaha dadka Soomaaliyeed waxay qaadi karayaan la isla garanayo maxaan meel isla dhignaa taasuunba ay tahay laba wadan oo ku jira negotiation ama ku jira muxuu haynaa wada hadal ku jira oo wax way ka wada hadlayeen meehin dad isku mid ah meel wax wada jeedayeen in wala doodaya meel hadii la doodana wanaag baa soo socda geedka hadii la isku yimaado Soomaalidu waxay tiraahdaa wax geed lagu soo gooyay uunba mala noqon karo wax wadi kara marka xafiiltanka noocaasa munaaqashaadka baa naga dhaxeeyay waxaan idin sheegay marka
cashuur waan ka raagnay sidaa daraaddeed waa la garawsan karaa inuu qofku yidhaa cashuurtani waxaan diga qaadaysaa maxay tahay waa la garawsan karaa waxba yaana dib u sii noqonin yaa 40 sano u dambeeyay qofka 40 jirigii wax wanaagsan lama kulmin yaa annaga qiirada nahaysa dadka ay waaweyn ee ogaa wadankan inuu cirka mariyay mar waana adduunyada ugu sarreeyay qiirada nahaysa dad badan baan ahayn leena ma way aragba wax wanaagsan ma garata dhalinyarada hortaagan oo dhan waa dhalinyar way shalay torra dabatay oo yar yar qiirada annaga nahaysa naga haysta 60 iyo 70 dalkan halku mariyay naga haysa iyagu ma dareemi karaan anagu waxaan ognahay inuu dalkan dal ahaa noqon karo yar ognahay marka qiiradaas aan nahaysa waxaan idin ka warramayaa marka halkan ku haya cashuuraha adduunyada laga qaado wadanadan hagaagkeena yaa laga qaado waxa weeye 11 beriga iyo customka ah iyo 11 kale oo laga qaado gruubo kale telecomka ku jira xawaaladaha ku jira baananka ku jira 22 ka cashuuro ayaa la qaadaa 22 ka cashuuro looma qaaday dadka dhiiga laga jaqo looma qaaday waa wax la isla wada eegay halkan waxa ku yaala wadanada jaarkeena ku yaala Soomaaliya way ku jirtaa eegada Soomaaliya way ku jirtaa waxa la eegayaa 22 ka waxaan qaaday inagu iyo waxa iyagu qaadaan iyo rate ku inta ay tahay cashuurta la qaadaya inta ay tahay boqollahu intuu yahay ayaa halkan ku qoran laba mooyaane inta kale oo inaga waa zero way nothing waxba ma qaadnayno waxaan qaadnaa waa no iyo no iyo no iyo no ya iyo no iyo no dhibaataduna ma aha dadka diidanay ee weynaan wali isla fahmino meel baan ka soo kacayna aad u hooseysa ya qaw baan ka dhacnay qawgii baan soo soconaa meel baan soo soconaa aad u hooseysa marka dadku yar inay bartaan ayaan doonay ayaa ku bilownay cashuurta shanta waa kan qaanuunkii cashuuruhu waa kaas قانونك عشوره واقع يا أفتلياني بوكو قريه هاي يا أفتلياني بوكو قريه هاي أفنجريسي لو كنت جديها وحنو ملانا إنه أف سومالينا حتى كجرو حوغا لو درتري دالكم مر والبا قانون باكاغن والله لا استعماله وحان قانون لهيني وملا أول وحان قانون لهيني وحوي وحول لا isla gartay ya wuxuu la isla gartay buu noqonayaa qaanuunka marka halka taagan ee cashuuraha ku shaqalihi ee intaas oo dhan soo socday ka ugu dambeeyay anagu markaan isticmaalayna waxa weeyaan 1984 iyo soo baxay qaanuun number 2 baa la yiraahdaa cashuuraha waxa laga hadlayaa kala gogoonida tan maanta aan qaadayni cashuurta gadista weeyaan cashuurta gadista kala wada nooca dadka VAT bay qaar yiraahdaan ayaan la isku khaldin faadku waa wax kale cashuurta gadista weey cashuurta gadista cidda laga qaaday halka lagu qaaday dowrka wasiirka maaliyadda ku leeyahay maanta ana joogo shalayna nin baa joogay saadabar qaar kale joogo doonay ya waxa cidda qaadi doon si loo qaadayna halkan ay ku qoranta caddaan weeyaan madmadow kuma jiro shanta inagu aan qaadayno qaanuunka odhanaya hadda waxaan idin sheegay inuu halkan shanta ka qaadayno wadanada inagu xiga laba haddaan soo qaato magacooda anigoo sheegay cashuurtayna waan ka hadlayna oo dekada lagu qaadi karo halkan ay ku qoran tahay meel kalena waa ku qaadi meel wasiirku yiraahdo halkaas feasible halkaas suuragal ayaa lagu qaadaya cashuurta wasiirku wuxuu leeyahay xaq buu leeyahay inuu halka lagu qaado halka lagu qaadaya mushkilad weyn ma aha qaanuunkana ugu taala eegata cashuurta shanta aan ku sheegay wadannada agaarkeena laba haddaan soo qaatay midna waa 18 midna waa 16 taasi waxay sal u tahay iyo cashuuraha 22 dad kala qaadaan inaguna aynaan qaadin waxay sal u tahay waxa weeye halkan kala taaganahay wadannada ay kala taagan yihiin de lacag baa wax samaysa soo ma qof mid walba caasimidiisu tago waad arki doontaa meesha lacag talay meesha la ooli marka shantaasaan ku bilownay iyadoo la eegayo duruufta in haysatay faraha badan leh ee dadkeena wax iibsanaya haysata dadka wax soo iibiya haysata wadankeena maraakiibta halka ku yimaadaan la eegayo koska la soo muxuuha soo qaadida alaabta waxa lagu soo qaadayo nooliga la eegayo
riska dadku gelayaan iyo khatarta ay gelayaan eegaya waxaasoo dhan oo la isku jaangooyo wuxuuna iskaga dhufo maahe waxaasoo dhan oo la isku jaangooyo la xisaabiyey ayaa la yidhi 5 wax ka badan dadkana ma qaadi karaan 5 uun baan markaa samaynay waxaa kaloo aan idiin sheegayaa dad iyo Soomaaliyeed inaan isla fahamnahay tahay halkaas 5 baa lagu xukumay baa la leeyahay arrimaha horta cuntadu iyadu waxay quutu daruuri cashuur male waa waxyaalaha quutu daruuriga ahayn waxaan ka hadlaynaa qofka oo shaar iibsanayo 2 senti ku dar wax dawlad dibiyana maaha wax albaab loo xidhana maaha shaar qofkii iibsanayo 2 senti noogu dar inta weeyaan waa inta badan waa inta marka 2 senti iyo $20 iska rabto boqolkiiba 5 maaha iska rabdiga adugu shaarkii $20 ahaa 20 senti hadii laga qaadayo percentage-ga boqol muxuu noqonayaa aduu iska rabdig 5 maaha 5ta meesha wax baan u dhignay laakiin qiimihii ku dhacay 5taas ayaan soo yaraynay si aan dadka uga dul qaadno culayska uga dul qaadno 5tana wax baan ula jeednaa adduunyada kale ula jeednaa dhinacna waxaan uga soo yaraynaa si aan wax badan ugu dhicin marka cashuurtaas markaas saasay ahayd waxa mahad ilaahay baa le ganacsatada ayaa iyaguna aad iyo aad fahamkooda u wanaagsanaa wax kasta wax fiiltanku soo maray waxaan anagu isleeyahay imika heshiis baan gaadhnay baan isleeyahay arrimo si fiican bay u socdaan waan isleenahay hadhow waa la iskaga iman doonaa wixii kale baan isleenahay waddankani haddaan doonayn in hore u socdo waxaa dhowriya 20 cashuurood baa in la bixiya dalna ma sheegan kartid madax bannaanina ma sheegan kartid cashuur ma bixinayna ma odhan kartid horta qof diidaya cashuur ma arag anugu ya qof la cashuur baan diidaya ma arag laakiin haddana kulleyba cashuurtu cid uun voluntary iskaga timaado cashuur bixisa adduunkuba waa saase qaanuunka in la isticmaalo weeyaan Soomaalidu waxa aan kula talinaya in sharcigu in haga weeyaan wax walba sharcigiisu muxuu yahay la yiraahdo ya xaal arinta la yiraahdo xaal mastuurka anu halkan ku bartay xaal mastuur waxa weeye wixii sharciga la oranaya maxay inaga labadeena aan dhiil gaadhna la oranaya ya aniga intaasan ku siinay taaga qaad markii dawladda xoogayay waxa la yiri kartoon weyn iyo kartoon yar adduunka waxa kartoon weyn iyo kartoon yar oo wax ku jira war loo hay lagu cashuura ma jiro ya kartoon weyn oo caaga iyo kartoon weyn oo telefoonada iska buuxaan bahala qaaligi ayaa loo oran kanaba kartoon weyn inta bix kanaba kartoon yar inta bix adduunka ilaahay waxaan Soomaaliya ahayd oo waxa si ka dhacaan oo kartoon yar iyo kartoon weyn ma jiro in ka guuro weeyaan in aan qiimaha shaygaasi leeyahay cashuurta saar weeyaan dadku inay bartaan weeye in loo adkaysto weeye dalkan hadii kale dhismi maayo arrimaha cashuur horta halkaas ay marayaan waxaan doonayaa kale idin ka warramo marka bishan imika aan joogno ee bilaabantay dhamaanaysa waajibaad badan baan nasaaraa waxa deena saaray kulli waxa weeye in la bixiyo muxuu ahaa inaan wixii la nagu leeyahay la bixiyo hadii la wada bixin kari waayana anigu beeridii sheegi maayo waxa la bixinayaa waxa daruuriga ah la bixinayaa waxa daruuriga ugu weyn halkan waxa weeye in dadka shaqeeya mushaarkooda la siiyo haddii mushaarkooda la siiyana inay shaqeeyaan sida ra'iisul wasaaruhu uu yiraahdo uu tilmaamo hadday shaqeeyaan mushaarkooda la siiyo haddaanay shaqeynayna aan la siinin qofkii mushaar la siiyana shaqeeyo iyadoo sidaa tahay haddana waxay la tahay inaan waxyaalo badan baa dhacay bishan qaska iyo arrimaha loo yimid xagga cashuura ka yimid waxayna dhaxal siiyeen in wax badan soo bixi waayaan bishan aan imika joogno laakiin haddana sidoo tahay waxaan ku talagalsanahay inaan bixin karno muxuu ahaa inaan bixin karno mushaaraadka intoodii banayd waan saxeexay waxaan u maleynayaa qaarkoodna in la bixiyey shalay iyo doraad iyo maanta iyo waxbaan saxeexayay waxaan saxeexana kulli waa wax lacag u taalo la bixinayo waxaan filayaa inaan bixin doono waxa kale oo meesha ku jira geedi socodka xagga aan u socono iyadoo taasi tahay geedi socodka xagga aan u socono bisha March 31 waxay la mid tahay December tii aan soo dhaafnay ayay la mid tahay fidda nagu taagan waxay nagu taagan tahay waxa weeye waxaan doonaynaa inaan 40 milyan keeno 3 bilood 40 milyan keeno dadkeena ka keeno meel kale ma aha wax la iska kaasiyo una ma wax ciidan ku soo transferadaan cashuur weyn ku yimaadaan ya IMF qalkan waxa ku dareen oo idin ka tagay reportka soo saareen
soomaalidii dad dawladdii iyo dadkii waxay ku heshiiyeen in cashuurta la bixiyo cashuurta gadista oo markii hore waxyaalahan kusoo heshiinay cashuurta gadista waa ta ugu importansan weeyaan ta ugu muhiimsan waxay soo yidhahdeen cashuurtii gadista iyadoo duruuftu adagtay haddana ya muxuu ahaa dawladdii iyo ganacsatadii way ku heshiiyeen inay tahay isla qaataan waxyaalaha ay nagu ammaaneen ayay ka mid tahay marka waxaan isku dayeynaa markaas waxyaalo badan baa noo suuro galay waxaa ka mid a cashuurta inaan heshiis ka gaadhno waxaa ka mid a inaan hoteelada iyo meelaha wax lagu cabo aan 5% kusoo rognay naga aqbaleen waxaan faraynaa waxa weeyaan bishii way dhammaanaysaa habkii aan ku heshiinay inay hoteeladu wax ururiyey annagoo u ducaynaynaa dadka Soomaaliyeedna abaal u hayo inay lacagaha qaadaan banka geeyaan rasiidkana tusaan waxaan markaa isla eegnaa rasiidka iyo rasiidyada ku jira computerka ayaan isla eegi doonaa oo arrintaas arrin ku heshiinay weeyaan waxa kale wada hadal noo socda gruubo kale oo fara badan wada hadal noo socda halkan qof waliba cashuur inuu bixiyo weeyaan haddii kale wadanka in la xiro la iskaga tago weey ya waxa wada hadal noo socda baananka in cashuurta bixiyaan ma rabnaa nagumana diidana xawaaladaha in cashuurta bixiyaan ma rabnaa nagumana diidana shirkadaha oo dhani cashuurta la yiraahdo cashuurta muxuu dakhliga ku soo galay iyo waxa profit ka samaysay maxaa la yiraahdaa faa'iidada aad samaysay marka wax walba ka jirto cashuurahaas wali noo haray kuwaan iyaguna dadaal baan kula jiraa kuwa la kaydiyaha soo saara waxaan doonaynaa in cashuur bixiyaan cashuurta la bixinayana waxay ku xidhan tahay waxa weeye dadka lagu xadgudbo maaha cashuur dusha laga saaray wixii la kari karaan markaan sinaha ay bixinayaan marka group walba sidaas wada hadal noogu socda maantada imika markaan ka dhameeyo halkan shir baan ku galaya cashuurahaas oo ah marka dal wuxuu ka dhismay ama ka dumaa waxa weeye dadkiisu sida ay ugu soo jeedaan ay wax ku bixiyaan ama aanay wax ku bixin now waan soo gabagabeynaya marka waxaan ku soo gabagabeynaya aad baad u salaamantii dadaal weyn baan ku jirnaa waxaan ku talinayaa anuu qof walo Soomaaliya oo bayna wax bixisay weyn ama halkan joog gudaha ama meel kale joog anuu waxaan mas'uul ka ahay finance kan mas'uul ka ahay account yaa la idin furayaa dollarka iyo labadaba ku soo ritay meesha dad joogo anigana xisaabi ya marka dahabshiil ama amal express ama xawaaladaha kale aad hormarayso adeero ku rid account-kii dawladdu ma ay ku rid anigana waxaan balay idin qaadaya meel aanad ogeyn inaan dollarkaasi marima bal ku qaado waxa lagu fan garanayaan ku sheegay waa isla garanaynaa waxbaynu ka wada qabanaynaa waxaan isleeyahay waxa weeye anigu meelaha markaad marayso markaad lacag soo diraysa $2 soo raacay wax soo raacay dawladda leedahay account baan ku furaya ya aniga waxay la tahay qofka Soomaaliyeed rag iyo dumarba ee adduunka daafiisa jooga ee dalka dhibaatadiisa telefishanku ka dheehanaya asagoo shaqo wanaagsan soo qabsaday halka telefishanka galabtii markuu yimaado shaarka soo maydho halka ka daawanaya ee aan digiyo xoolo maxaa tahay weeyaan ya ee aan digiyo xoolo maxaa tahay dalka wax ku tar wax ku soo tar account kana weydii ku soo rid dalkani wuu ku baahan yahay qof walba uu baahan yahay ardayga oo shirinkaaga yar ku rid hadaad shirin haysato askariga ku rid dadka dibadda joogo gaar ahaan dalkana leedina kuwa kale meel hidin gacanta jeebka geliya haddaad doonaysaa dalkani uu sii jiro ya waxaan ka hadlayo dhan aniga xaggayga weeye waa finance weeye wax kale oo siyaasadeed oo dhex galaya ma jiro aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxay noo noqonaysaa haddii ilaahay yidhaahdo bisha dambe aakhirkeed bishan beri bilanaysa aakhirkeed haddii la yidhaa iyo intii ka horreysa haddaan helo waxaan idiin sheego waa idiin sheegaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu